بسم الله الرحمن الرحيم. ووريان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مركب وهريسة وحن سلام يا مرعي ميديا وحقيقي آد باهينيسي ترتنك كسعودي قرون كبدا عقت علولا وها ترتنك استحق لك مقالوي قول كردفو ما أنت وحن كسوقنا هي حرونت قول كردفو علولا وأنا مدة 6 عشاء وسوس عني taas aan ku soo baranay bulsho aad u qiimo badan iyo dalbarasho iyo dhul baaxad aad u weyn xaqiiqdii una baahan inuu helo wado wanaagsan oo si fudud loogu soo gaaro magaalooyinka waxaana ka hadli kara cidii aragta wadada iyo xaaladeeda marka waxaan leenahay fariinka uga diraya dawladda Puntland iyo shacabka reer Gaardafo in isku tashi Puntland wadadaas loogu hagaajin lahaa loogu kaco taas waata marka aan soo laabto xiriirka kubadda cagta Puntland wuxuu ka mas'uul yahay horumarinta kubadda cagta ee Puntland iyo guud ahaan garoomada kubadda cagta Puntland shabeegtole magaalada Gaalkacyo waxa ka furmay tartankii kubadda cagta degmooyinka gobolka Mudug kaas oo soo daafuray gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta Ciro marka magaalada Garowe ay ka furantay tartankii saddexgalka xaafadaha Garowe iyadoo soo daafuray duqa magaalada iyo gudoomiyaha أنا عيارها أنا قدامي حرق بدأ عقد قبلك نقال ترتك شهادة فرمي وزير كوزارة شغالها أنا مستر عبد الرحمن حوية قد حرق بدأ عقدها وحن سواء عن قبل كردفو وأمرك يقول رئيسي وزير سبورت ويماذا حرق بدأ عقدنا يسوق جاران ترتك كان قريبا وحن كاهن فرسمديسة يشروع ديسة حركيسة iyo garsoorka tartanka maamulay tartanna sidiisa marka la qabanayo wuxuu ku socdaa in la helo garsoor wanaagsan oo tartanka dhexka iyo in amni la helo marka ugu horeeyay garsooriyaasha tartanka maamulayay oo garsoor maxay ugu horeeyay rag la shaqeynaya oo mahadcelinaya sidoo kale ciidanka amniga oo isugu jira BNBF iyo booliska oo gobolka Gaardafo waanu mahadcelinaya laantoodna tartankaasi ma socdeen iyo dhammaan shacabka ku nool magaalada Caluulo iyagu soo dhaweeyay magaalooyinkii imaanayay oo si fiican u soo dhaweeyay kuna martigeliyay inay ciyaaro wanaagsan ku ciyaaraan xarunta gobolka iyagana u mahadcelin galabta waxaan soo gabagabeynaa tartankii finalka oo isugu soo baxeen Murcanyo iyo Xaabo waxaan rajaynaynaa inay si nabadgelyo ku dhamaato ka xiriir ahaan iyo wasaaradaha waxaan keenay in ay helaan materiaalkii lagu ciyaari lahaa finalka iyo abaalmarintii tartanka isagana waxaan rajaynaynaa insha Allah qalabkii waa ku wareejinay materiaalkiina waxaan rajaynaynaa insha Allah abaalmarinta lagu talagalay inaan galabta garoonka geyn doono mana noqonayso markii ugu dambeysay aan imaan Gaardafo xaqiiqdii wadadeeda waa baranay waan iimaanayna markasta waan ka abaabuleynaa tartamada qaybaha kala duwan tartan markii la qabtana ciyaartoy fiican baa ku soo baxay xirfadooda aad u sareyso gudoomiyaha dhalinyarada cusba oo aan uga mahadcelinayo shaqadii ugu horeysay noocan laga qabto gobolka inuu yahay Maxamed Cabdalla oo xaqiiqdii maanta oo haysto ciyaartoy matali kara gobolkiisa maadaama ciyaari gobolada Puntland qabanay bis 9 koodeeda 2023 lagu qaban doono gobolka Mudug xaruntiisa Gaalkacyo waxaan si aad ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda deegaanka oo isagu si weyn u garab istaagay barnaamijkan ciyaarahan inay qabsoomaan sababana inay mas'uuliyiinta oo wasiirka iyo wasaaradda xiriirku yimaadaan jeclaysiiyana in mataqaana abaabulku sameeyay aanu ku nimi waan uga mahadcelinaynaa sidoo kale xisaabiyaha oo gobolkan uu maxamed Chego isagoo sports aha isagoo door weyn ka qaadatay dhammaan shacabka reer Gaardafo waan salaamaya sida wanaagsan ee tartankaas ay u qabteen waqti adag iyo duruufo adag ay ku qabteenna waxaan ku leeyahay waa u sabarteen insha Allah waxaan rajaynaynaa in ay la jaan qaadi doonaan gobolada Puntland ciyaartoy fiican ku imaan doonaan oo tartanka uga soo dhaxbaxay gool baan nin rajaynaynaa media Murcanyo waxaan leenahay waa mahadsantihiin sida wanaagsan u garab taagantihiin kooxdiina iyo tartankii socday iyo dhammaan barnaamijyada arrimaha bulshada ku mahadsantiin. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.